hay'adda Wash Emergency ayaa degmada Ceelbe gobolka Sanaag waxay soo gaarsiisay 650 qoys oo magaalada ah bisha barakaysan ee Ramadaan biyahan oo loogu talagalay dadku kaliya ay cabaan maadaama xooluhu haatan ayna biyaha cabayn ay haystaan naqay markaas ay daaqayaan biyaha ayaa magaaladu waxay marti ka gelisay bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka degmada Ceelbe agagaarkeeda degan waa kan gudoomiyaha cusub ee degmada Ceelbe gobolka Sanaag hayba Axmed Sharac Cabdallah iyo waliba goortida xafiiska xaqsoor ee degmada Ceelbe iyo xubno kamid ah golaha deegaanka ee degmada Ceelbe anigoo ah gudoomiye deegaan degmada Ceelbe sanadkan cusub waxa weeye halkan waxaan u qaybinaynaa biyihii ay bixisay Wash Emergency Somaliland biyaha oo deeq ay u siisay bisha barakaysan degmada Ceelbe biyihii ayaa hadda halkan lagu qaybinayaa qorshahoodana gobol diyaar u saaran yihiin in degmada ay galabta ka bilaabaan oo kulmaan waan gatay biyahaas intee dhan biyahaas waxay leeyihiin 79 boydo iyo degmada Ceelbe dad kaale bahanaha dadka abaal siinaya waliba sida loo sii kala liito xaafad walba inta sida loo sii kala goosaysan yahay xaafad walba waxa weeye doodisay Somaliland hay'ad bay u soo dhiibtay hay'aduna degdeg bay u soo gaarsiisay Ceelbe bisha barakaysan oo Ramadaan baanu bay ka barakaysatay waxaan u haynaa lib fiican maadaama ay bishii barakaysnayd biyo u keentay waxaan u haynaa lib wanaagsan waana aragtaan hadda inta taagan galabta qurax 7 baabayood baa taagan oo dhaansan oo hadda shubaysa waxaana Ceelbe magaalada baale waxaa Ceelbe baa lagu talagalay iyo dadka maatada ah waxaanu leenahay biyihii Ceelbe daloo ku keenay oo hay'addu noo keentay baana soo gaareen iyagii baa nidaamkoodii iyo qorshahoodii aanu meesha u taaganahay oo u shiraynaa waxaanu leenahay biyahaas waa biyo fiican dadka hay'adda waa libaanu haynaa sababtoo ah soonqaad ah oo biyaha dadku u baahan yahay aad ugu baahan yahay baa loo keenay biyaha aad baan ugu baahnayn dad maata oo aan waxba iibsan karin baa jiray hadii ilaa qadarkii dadkaas aan ugu fidinaynaa biyaha dadkaas loo fidinayaa oo wixii ka gaari karaan intay ka gaari karaan iyadoo cadaalad lagu wado intay ka gaari karaan loo fidinayaa kale biyahaasi waxa ka warbixiyay oo sheegay inay hay'adda Wash biyihii ay ugu talagashay bisha barakaysan ee Ramadaan ay soo gaareen degmada Ceelbe gobolka Sanaag gudoomiyaha xafiiska xaqsoor ee degmada Ceelbe Cabdicasiis Maxamuud Cabdisalaam anigoo ah madaxa ama gudoomiyaha xafiiska xaqsoor ee degmada Ceelbe khaas ahaan wakiilka Water Emergency biyahan hadda halka maraya waa biyo loogu talagalay dadkaasi in ay bisha barakaysan ay ku soomaan oo ay qaataan waana biyo dadkaasi ay ugu talagashay in sida xaqa ah meeshii loogu talagalay ay maraan waxaana marxaati ka ah bahda saxaafadda iyo sawirada meesha laga qaadayo biyaha waxa loogu talagalay dadkaasi ayaa loogu talagalay khaasaan magaalada weeyaan biyuhu qoyskii wuxuu leeyahay 3 foosto litirada waxay noqonayaan 90 biyahan ay hay'adda Wash Emergency ugu talagashay bisha barakaysan ee Ramadaan inay dadku ka faa'iideystaan ayaa waxa ka faa'iideystay 650 qoys oo ku nool magaalada Ceelbe iyo waliba oo marti laga galiyay dhulka baadiyaha ah ee reer Ceelbe ay ku nool yihiin waana biyihii ugu badnaa ee inta bisha barakaysan la soo gaarsiiyo degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag waa Axmed Cabdilaahi Ciise Cashuur TV-ga caalamiga Somali Cable TV degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag